gaar ahaanna xilliga barwaaqada iyadoo ay ka baxaan dhir aad u kala gedisan oo ku habboon daaqa xoolaha. Dhanka waqooyiga ee ku xeeran gacanka Cadan waxaa ku yaalla dhulka loo yaqaano Guban, dhulkaas oo bilicsami ku siyaadiya Berbera iyo buuraha Golis ee aan kor ku soo xusay. Ceerigaaba agteeda waxaa ku yaalla buurta ugu dheer Soomaaliya oo lagu magacaabo Surad, dhererkeeduna lagu qiyaasay 7,900 fiid ama 2,408 mitir. Buurta labaad ee Soomaaliya ugu dheerna waa buurta Baxaya, waxayna ku taallaa Buruc oo Boosaaso ka xigta dhanka bari. Dhanka koonfurta marka aad u kacdidna waxaad gelaysaa Sool iyo Hawd iyo dhulka loo yaqaano Golgodon ama Oogo. Markaad timaadid dhanka Baydhabo waa dhul ka samaysan dhagaxa loo yaqaano granite. Xeebta u dhaxaysa Kismaayo iyo Hobyo oo dhererkeedu yahay 1,000 kiiloomitir waa dhul bacaad ah, taasoo ku tusinaysa bilicsimada dhulka Soomaaliya marka aad ka soo eegtid dhanka badda. Dhulka kale ee hooseeya dhulhoosaadka ee Soomaaliya waxaa ka mid ah dooxada Dharoor iyo dooxada Nugaal oo ku yaalla waqooyi bari. Labadubana waa dhul waadi ah, waxayna biyaha ku daraan badweynta Hindiya. Dharoor waxay badda kaga darsantaa Xaafuun, Nugaalna waxay kaga darsantaa Eyl. Dhanka koonfurta waxaa ku yaalla labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, waxay labaduba ka soo bilaabmaan buraha Itoobiya. Jubba wuxuu biyaha kaga daraa badweynta Hindiya meel ku dhow Kismaayo. Shabeelle waxa uu ku dhammaadaa meel dhexe inta uusan badda gaarin. Jubba ayaa ka biyo badan Shabeelle. Dhulka labada webi ku xeeran ee aadka u qurux badan waxaa ka mid ah Afgooye, Baalcad, Jawhar iyo Jamaame. Dhaqanka, luuqadda iyo habnololeedka dhammaan Soomaalidu waa isaga mid meel walba oo ay geeska Afrika kaga nool yihiin. Soomaalidu badanaa waa dad isugu jira reer guuraa, beeraley, kalluumaysato iyo kuwa magaalooyinka degan. Afka ay ku hadlaan dadka Soomaalidu waa af Soomaali, waana af aad u qadiimi.